adduunyadan maanta aynu ognahay xiriirka caalamiga waa arrin muhiim u yahay sababtoo ah adduunyadu waxay noqotay sidii iyagoo qol yar ku wada jiro iswada arkaya oo kaleeto lama kala maarmo berigii miyiga la deganaa haddii qoys walba ama qof walba iyo deegaankiisu ay baahidooda la soo bixi jireen ayna u baahnayn cid kalena xiriir weyn uuna kala dhaxaynin waxay uga baahdaana uu aad u yaraa iminka sidaa ma aha saxanka bariiskeed maanta ku qadaynayso magaalooyinka Soomaalida markaan tusaale u soo qaadano waxyaabaha laga kariyay saxanka bariiska ah iyo waxa lagu kariyayba waxa laga kala keenay min China iyo Koonfur Bari Asia ka soo bilow ilaa iyo dhinaca kaleete ee Argentina iyo Latin America tag inta u dhaxaysa ayaa saxankaaga bariiskii uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha lagu kariyay marka halka waxa muuqata xiriirka adduunyadu aad u isugu xiran yahay hanaanka xiriirka caalamka ee jira hadda wuxuu samaysmay dagaalkii labaad ee dunida kadib waa hanaan jira 75 sano la soo dhaafay lagu wada shaqeynayay wuxuu soo saaray marka xanuunkan COVID-19 in hanaankaas habacsanaan xoog leh inay ku dhacday kala burbur xoog leh inuu soo wajahay sidii la rabayna inuuna u maareyn karin arrimaha caalamka ka jira saadarteed waxa abuurmay oo markiiba waxa abuurmay xiisado ayaa ka dhex aloosmay meelo kala duwan oo xiriirka caalamka taabanaya xiisadahaasi ha kala kululaadaan waxay xiriir ka aloosmeen Mareykanka iyo hay'ad ururka caafimaadka adduunka WHO waxa xiisado ay ka dhex kaceen Talyaaniga iyo ururka midowga Yurub EU-da ee uu ka tirsan yahay xiisado waxay dhex mareen heer dawladeed markii la eego Mareykanka iyo Shiinaha waxay dhex mareen Japan iyo Koonfur Korea waxay dhex mareen Ruushka iyo Saudi Arabia oo muxuu ahaayay dagaalkii qiimaha shidaalka dagaal culus ba halka ku dhex maray qiimaha shidaalka marka shidaalkii marka waxa muuqata halka marka xiriirkii caalamku ama ha noqdo mid dawladda u dhaxeeya ama ha noqdo mid u dhaxeeya ururo goboleed iyo dawladihii xubnaha ka ahaa ama ha noqdo hay'adihii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ka tirsanaa sida WHO oo kaleeto iyo wadamo wax u dhaxeeya sida Mareykanka iyo WHO marka sidoo kaleeto dawladaha dhexdooda waxa ka bilowday wixii lagu magacaabay dagaalkii cafuufka ama maaskigan la gashado oo dawladaha bilowgii Abriil baad uu soo baxay in dawladaha qaarkood ay dhaceen muxuu ahaayay shixnado iyo badeecado noocaas ahaayo loo waday wadamo kale u socday ama loo iibgeynay ama iibsadeen inay kala wareegaan ama ay ka boobaan marka halka waxa muuqata xiriirka caalamiga ah in xanuunkani uu dhaawac weyn oo jira uu soo muujiyay kala daadsanaan xoog leh uu muujiyay muxuu ahaayay haddii xiriirka caalamku uu sidan dhaamo oo ka fiican yahay xiriirka caalamigu culeysyo waaweyn oo adduunyada soo wajahay buu wax laga qabtay kana sida iminka loola falgalay si ka fiican ayaa wax looga qaban lahaa tusaale ahaan safmarkii kan ka horreeyay Ebola ee galbeedka Afrika ka dilaacay 2014kii sidan si dhaantaa loo xakameeyay dhibaatadii dhaqaalaha dunida 2008 qaraxday iyadana adduunyadu way isugu tagtay oo dhaawac ka geysato laakiin haddana waa la isugu tagay wax fiican waa laga qabtay labadaaba waxyaabaha sahlay waxa kamid ah xiriirka caalamiga ah ee jiray oo wada shaqeynayay dawladda Mareykankuna ay hogaaminaysay laakiin hadda xiriirka caalamiga ah waa burbur dhameystiran bayuu ku imaaneen laakiin dhaawacyo xoog leh ayuu qabay kala daadsanaan xoog leh ayaa ka muuqatay hoggaan cid isku dubrido oo horseedana uu waayay oo Mareykankii horseedi jiray qiyaastii 2016kii wixii ka dambeeyay hawsha uu ka casil